dhalinyarada aqoon-yahanka ah ee Somaliland ayaa taliyaha ciidanka booliska Somaliland guddoonsiiyay shahaado sharaf uu ku muteystay howlkarnimada shaqo iyo daacadnimada xilka ciidamada booliska Somaliland uu hayo waxaana xuseen ciidanka booliska Somaliland ay hadiye habeen beheegan ugu jiraan nabadda iyo adkeynta nabadgelyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland isla markaasina la'aantood aan cidina han iyo himilo u yeelateen inay hiigsato horumarka maanta Somaliland ku naaloonayso maanta halka waxaan u joognaa ilaanu dhiirigelino taliyaha ciidanka booliska sareeye guuto Cabdullaahi Fadil Iimaan dhalinyarada runtii aqoon-yahanka Somaliland ee ka kala socda gobolada qurbajooga qolqajooga waxay garteen shaqada ay hayaan booliisku bulshada Somaliland ciidankeena booliiska bacadka taagan qoraxdu dishay inaynu dhiirigelino hadafka horta waa ka inaynu kor u qaadno himiladooda iyo shaqada ay noo hayaan munaasabadan quruxda badan ee loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidanka booliska waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin hawsha aad u haysaan Jamhuuriyadda Somaliland anoo mataliya bahda shaybaarkana aan shahaado sharaf gaar siiyo haddana maanta guud ahaan maadaama ay siinayaan Somaliland oo shahaado sharaf aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii shaqada qaranka hayaan ma aha mid koow iyo laba la oran karo anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka qurbajooga aan maanta halkan doonayaa munaasabadan qiimaha leh inaan ka sheego taageero aanu u hayno ciidanka booliska qurbajoogu meel kastay joogaanba waxay ka warhayaan booliska ay la joogaan halka uu ka joogo dalka ay joogaan qolqoljoogana waxaan rabaa inaan kelmad u sheego marka iyagana waxaan leeyahay war maanta boolisku waxa weeyaan ka lagu dhaato waa kala ixtiraamo geesta kalena taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland sareeye guuto Cabdullaahi Fadil Iimaan ayaa si weyn uga mahadnaqay shahaado sharafta ay guddoonsiiyeen guud ahaan ciidamada booliska gaar ahaan waxa uu xusay in ciidamada boolisku ay sameeyeen qaybo kamid ah bulshada oo si gaar ah ula shaqeyn doona dhalinyaro reer Somaliland isku soo abaabushay ujeedadooduna ay tahay in ciidanka booliska dhiirigeliyaan horta marka ugu horeysa dhiirigelinta waan idinka guddoomay aad iyo aad baan u mahadsantiin in bulshada anaga u baahan waa bulshadayada aanu ka nimid bulshadu waa tan doonayna inay la shaqeyso talaabooyin badan oo qaadnay way jiraan oo matalan saldhigyada Hargeysa kala caasimada ilaa 4 saldhig ayaan wax community police ka sameynay direys baa loo galiyay yani siday u ogaadeen in nolol ogaadaan kiisaska dhacaya oo inooga caawiyaan waxa ka sii fiican tan maanta aqoon-yahan nolol timaadeen waxaan markaa halka ciidanka police ka faraya inay intani shacabkii ka wakiil yihiin oo matalayaan maadaama ay nagu dhiirigelinayaan shaqada adag ee qaranka Soomaaliland iyo bulshada reer Soomaaliland hayno inaynu inaguna ogaano kaalinta ay noogu jiraan